Baraa waa gabar 10 jir ah dhamaysayna Quraanka waliba tajwiid ku darsatay. Waalidiinteedu waxa ay ahaayeen dhaqaatiir Sacuudiga u soo guuray si ay u helaan nolol wanaagsan. Baraa waxay ahayd gabar caqli badan. Macallimiinteedu waxay u sheegeen inay samayso dugsiga sare iyadoo da'deedu tahay 10 sano. Qoyskeedu waxay ahaayeen qoys yar isla markaasna diinta aad u jecel. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadeed waxay iska dareentay xanuun. Waxa ayna horey ka soo aaday cisbitaalka si ay isu baarto. Markiiba waxaa loo sheegay in xanuunka kansarka la yiraahdo ay qabto, waliba ay la soo daahday. Hooyadii Baraa waxay ku fakartay sida ay gabadheeda ugu sheegi lahayd. Waxa ayna ku tiri, Baraa, jannada ayaan galayaa, waliba adiga ayaa sabab u noqonayo galitaanka jannadayda. Laakiin waxaan ka doonayaa inaad akhrisid Quraanka aad xafidisnayd uu ku xifdinayaa adduunkaaga. Gabadhii yarayd ma ayna fahmin waxa ay hooyadeed u sheegayso. Hooyadii waxaa la geeyay cisbitaal si halkaas loogu dabiibo. Gabadhii yaraydna markii ay iskuulka ka timaado ayay hooyadeed soo mari jirtay si ay Quraanka ugu akhriso ilaa galabtii. Inta aabaheed gabadha shaqada ka soo baxayo, maalin maalmaha ka mid ah ayaa dhakhtarkii cisbitaalka u yeeray gabadhii Baraa aabaheed si uu ugu sheego xaaladda xaaskiisa in ay ka soo dartay lana rabo inuu dhaqso ku soo gaaro. Aabihii Baraa shaqada ayuu ka soo baxay. Waxa uu horey u soo maray gabadhiisii kadibna cisbitaalka ayuu soo aaday. Markii uu soo gaaray cisbitaalka ayuu ku yiri gabadhiisii, "Aabbo, gaariga ku sii jir waan kuu soo laabanayaa." Aabihii oo ilmeynayo kana walwalsan xaaskiisa ayaa wadada gaari xawaare xoog ku socda ku dhacay. Halkaas ayuuna ku naf waayay waliba gabadhiisa horteeda. Gabadhii yarayd waa ay ooysay. Geerida aabahaas waxaa sababay ka walwalka xaaskiisa. 5 maalin kadib hooyadii Baraa waxa u yimid malakmoodka. Halkaas ayayna naftii ku weysay. Baraa waxay noqotay kaligeed. Saaxiibadii aabaheed iyo hooyadeed ayaa u raadiyay qoyskeedii oo markaas wadanka Masar ku noolaa si ay u hesho taxaddar gaar ah. Maalmo kadib Baraa waxay dareentay xanuun isla kii hooyadeed hayay oo kale ah. Sidoo kale waxaa la geeyay cisbitaal si loo ogaado waxa haayo. Markiibana waxaa la ogaaday in gabadha yar haayo xanuunka kansarka. Waxaa taas ka sii darneyd markii ay tiri alxamdulillaah, hadda ayaan la kulmayaa waalidiinteyda. Saaxiibadii iyo faamilkii ku hareereysnaa oo dhan way la yaabeen hadalkaasi. Marba marka xigta maba moodid qof xanuunsan ama xanuun dareemayo. Deganaan iyo farxad ayaa ka muuqatay. Waxaa maqlay nin Sacuudiyaan ah oo lacag leh, wuxuuna isku dayay inuu caawiyo. Waxa uu u diray dalka Ingiriiska si loola tacaalo xaaladeeda caafimaad. Laakiin kansarkii ayaa dhammaan jirkeeda ku faafay gabadha yar ilaa uu maskaxda ka gaaray. Baraa marba marka ka sii dambaysa farxad ayaa ka muuqanaysay iyo deganaan ilaa ay yaabeen dhaqaatiirtii markaas dabiibaysay. Waxay isku dayeen dhaqaatiirtii qalliin maskaxda ah inay ku sameeyaan. Isla qalliinka gudihiisa ayay kooma gashay walaasheen Baraa. Kahor inta aysan koomada gelin ayaa kanaal Islaami ah la soo xiriiray oo ay ka codsadeen inay Quraanka Kariimka ugu akhriso codkeedii macaana.